marka aniga jooga City lacag markii debut-ga ciyaaray hata lacag badan ma haysan City Shinawatra ninka la dhahayo oo Thailand ah haysta City markaas wuxuu ka gaday marka kan oo Sheikh Mansour markii la gaday markaas lacag badan imaatay markii oo aniga debut-ga helay Sheikh Mansour wuxuu keensaday David Silva Yaya Toure ciyaartooydaas dhan marka ciyaartooyda yaryarka waxaa la diray loan marka yani loan hal idir marka waxaa la soo dheelay Tevez Patrick Vieira Adebayor Balotelli ciyaartooy badan adiga Dzeko David Silva ciyaartooydaas dhan la soo dheelay dadka way weydiiyaan maxaa la Balotelli soo ahaayay Balotelli ugu sheekeena qoslayan dadka hadda maxaa la Yaya Toure camal marka ugu sheekeena jecel yihiin Yaya Toure wiligiis diyaar ma u ahaan training asagoo saan ah soo gala training badana ma fahmino All the big names on the bench for Manchester City. It's by far and away the least well known that comes on. Very, very highly rated youngster though. marka hore Nursom waa mahadsantihiin interview-gan ay ka qaadaysiin marka aniga magacayga waxaa la dhahaa Cabdisalaam Cabdiqaadir Ibrahim waxaa ahay professional football player waxaa professional soo ahay 12 sano maxaa la dhahaa anigoo yar wadankan Norway imaaday waxaan imaaday 2098 meelahaas aniga iyo familkayga hooyaday iyo aabbahay iyo 5 caruur 5 wiilal iyo 3 gabdhood waxaan imaanay magaalo la dhahay Ooyer waxay u jirtay Lillehammer waxay u jirtay 10 daqiiqo meelahaas sanadka bacdi markaas waxa soo guurnay Lørenskog waxay u jirtaa Oslo 15 daqiiqo meeshaas waxa ka bilaabay koox la dhahay Fjellhammer kubadda waxa ku bilaabay inta Norway chance ku helay in Bruni ku bilaabo laakiin iska hor waxa waa Bruni waa fiirsan jiray aabahayga Bruni u geen jiray adeeryaashayga Bruni u geen jireen anigoo yariis ah marka Bruniga family waxa ka imaaday oo kubad sport is jecel marka Norway imaanay waxa waaye luqadda wax badan ma nagu qaad marka ilmo tahay waa og tahay waxa waaye dhaqsa wax walba barane waxaan i caawiyay sportiska kubad isla markii kooxa helay luqadda si fudud u bartay marka maxaa la lahaa Brunigana maxaa la qof walba wuxuu jeclaay aniga Bruniga ku fiicnaay qof walba wuxuu jeclaay marka in oo kooxdeeda ku jiro kooxdeeda marka u saxiix hadii hal maalin ka maqnaado kulli waxa way xanaaqi jireen marka luqadda si easy u bartay markaas waxaan ka bilaabay koox la dhahay Fjellhammer kooxdaas aniga iyo walaalahay qof walba koox da'diisa la geeyay ani kooxdeeda da'deeday aligeeyay maxaa la macallimiin fiican meeshaas ku helay oo Bruniga maxaa la jecel iyagana ilmahoodana kooxdeeda u dheelo kadibna waxa waayay maxaa la kooxdaas waxa uu soo dheelay sanado badan ilaa 16 sano ka gaaray ilaa City iga qaadato nasiib wanaag maxaa la qarankana waa lagu daray qaran ka hor iyo City ka hor waxa jira wax la dhahayo Suna marka jirto 13 sano 14 sano marka jirto waxa jiro wax la dhahayo Suna waxa waaye gobolada oo ala soo xula marka koox walba waxay dirsanay ciyaartooyda golada dhan kala doorana marka ku ugu fiican
nasiib wanaag kuwa ugu fiicanaa noqday markaas haddana gobolladii waxaa kala doorana qaran laga dhigaa markaas gobolladii isku baxaayo 300 ciyaartooy camal mise ka badan kumanaan ciyaartooy waxaa laga qaadanaa marka oo 16 meelahaas 16daas qaran laga dhigaa marka nasiib wanaag kuwaas ka mid noqday qaranka under 15-16 qaranka Norway markaas qaranka Norway under 15-16 ku biiray markaas waxaa imaatay City iyo maxaa qaranka ciyaarteed ugu koowaad waxa uu bixinay Sweden si fiican u dheelay markaas waxaa dhahday Blackburn waxaa dhahday manoo imaan kartaa trialka ayaa u tagay si fiican u dheelay waxay dhaheen waa ku jeclaan mar labaad manoo imaan kartaa mar labaadkii aa tagay u tagay waxay dhaheen waxaa rabnaa inaan ku siino 3 sano waa soo laabtay markaas soo laabtay kooxo badan Norway ay dhaheen Cabdisalaan waa ku rabnaa kaal noo imaaw Lillestrøm kooxaha Norway dhan marka City garoonka soo gashay City aabihii iyo aniga isla wada hadalnay markaas toos City u tagay. Just to get a new contract is a really big thing for me, that gives me, a few years to improve and keep learning, and just to make the most out of it and, enjoy it, get into the Champions League maybe and win the whole thing maybe. maxaa markaas waxa lagu diyaarinaa academy markay joogto waxa lagu diyaarinaa in sida ugu tagi lahayd Premier League ciyaartooyda weynka maxaa lahaa la tartami kartid maaha waxa lagu baraa discipline lagu baraa motivation wax walba lagu baraa fahmino subaxdii soo gale aniga markii oo ay tagay xaga aabihii ay raacay aabihii ay la guuray dadka badanaa ciyaartooyda badanaa waxa waaye kiligooda la diraa family oo Ingiriis iyo ay la degayaan marka anina nasiib wanaag aabihayga la guuray asiga ay caawin jiray marka taxi ku imaanay subaxdii taxigaas ku geenayo training groundka trainingka bilaabay 1 saac 2 saac ka bacdi trainingka dhamaanayo 10:30 bilaabay trainingka 12 o'clock dhamaanayo 12 o'clock cunto 2 saac amal lagu siinaa inaad nasatid hadana trainingka labaad adigoo daalana guriga tagay hore ka seexanay markaas hadana subaxdii marka cunteena xoogaa yar hadana diga dhexe oo seexanay subaxdii kala hadana sidaas sabtidii iyo axadii ciyaar jirto markaas sabti mis axad ciyaar waxa loo baxaa markaas kooxaha Premier League dhan maybe Middlesbrough adiga kooxahaas dhan loo baxaa markaas weekendiga 3 sano asaas lii diyaarinay 28 marka gaartid toos. Mancini's touch is a beauty. Oh, and it's dribbled past Sebek and in. He was committed to going near post. And a feeble little P-roller has dribbled all the way in. And it's Abdi Ibrahim who's got it. And City lead to 2-0. And now it is that uphill task. What a pass from Mancini. Daddy would have been proud. I'm just trying to look at it again as the ball dribbles into the back of the net. Was there a slight deflection? But super little pass for Ibrahim just to tuck it away. But it might have been a slight deflection. But I think Jan Sebek would be disappointed with the way it's rolled into the back. marka aniga waxa oo hadda markaas jooga academy-ga dhanna waxa waaye wadamo badan ay ka wada imaadeen hal qof ma jiro oo waxa jira Ingiriis yar laakiin kulli waxay ka wada imaadeen Slovakia Romania way badnaayeen adiga Norway Sweden wadamo badan ay ka wada imaadeen kulli waxa loo tartama si ugu tagay lahaa maxal da first teamka marka nasiib wanaag waxa noqday one of the wadamadaas dhan ka imaadeen oo City u safto marka hada tagtay City waxa waaye graduateska magaciga ku qoran academy hada tagtay. Abdi, you've made your debut for Manchester City. Congratulations. How do you feel? Thank you. I've been with the first team a few times before, and I was sat on the bench against Blackburn.
but unfortunately I didn't get on. But today I got my chance, and I'm really delighted for it. Yeah. When did you know, or when did you think you might actually be playing today? The coach told me, I think 2 hours before the game, and I was really happy. But you know, the lads supported me, all of them, and they said, you know, just play like a normal game, like you always do at the reserves, and that's what I did. kuwa igala jiro waxa waaye David Dedrick Boyata, Denis Suarez, Umar El Abdalawi, adiga ciyaartooy badan ay ahaayeen. kulligood waxa waaye wada professional, qaar waxay noqdeen professional, qaar balooni iska joojiyeen, qaar waxyaalo kale bilaabeen. Marka qof walba jid oo raacay. Marka oo ka tagaysid academiga waxa lagu geenaa marka hore wax la dhahay reserveska waxa waaye under 23 under 20 something. xagga tage xaggaas markaas waxa lagu soo diyaarinayay si oo fiican maaho. marka xagga markii lagu geeyay adiga inaad isdabirtid waa wax walba waxa lagu siinaa lacagtaada waxaaga dhan nin weyn aad tahay markaas maaho, driving license ka waxaaga dhan haysataa. marka waxaas dhan waxa laga rabaa in aad adiga ismaamuli kartid, waxa 3 sano lagu soo diyaarinay maaho. marka difference ka waxa waaye dad waaweyn hadda la ciyaaray la training ma ahan ilmihii oo la ilaalinayay wax saan sameeysan la sameeysan la dhahay ma ahan. marka aniga joogay City lacag markii debut-ga ciyaaray xataa lacag badan ma haysan City. way haysteen lacag badan markaas waxa waaye waxa jirtay Shinawatra ninka la dhahayo oo Thailand ah haystay City markaas wuxuu ka gaday marka kan oo Sheikh Mansour. markii la gaday markaas lacag badan imaatay. markii oo aniga debut-ga helay Sheikh Mansour wuxuu keensaday David Silva, Yaya Toure, ciyaartooydaas dhan. marka ciyaartooyda yaryarka waxa la diray loan, marka raggan weyn la keenay. marka wili competition leh waaye maxaa la dhahaa. marka waxay igu noqotaan in la diro loankaas championship waa kasoo laabtay. markaas hadda Norway xasuustaa liiga la qaaday Strømsgodset. marka koowaad my second place, marka labaadna number 1 agalna. waxaa la soo dheelay Tevez, Patrick Vieira, Adebayor, Balotelli, ciyaartooy badan adiga Dzeko, David Silva, ciyaartooydaas dhan la soo dheelay. garoon la soo galay. marka maxaa la dhahaa waa wax oo ku farxo mar walba oo dadka way weydiiyaan maxaa la dhahaa Balotelli soo ahaayay. Balotelli ugu sheekeena qoslaayaan dadka hadda maxaa la dhahaa Yaya Toure camal marka ugu sheekeena jecel yihiin. Yaya Toure wiligiis diyaar ma ahan training asagoo saan ah soo gala training badana ma fahmino. marka wax oo waxa waaye waqti fiican ku soo qaatay aday ciyaartooydaasna relation fiican la soo yeeshay. hadda sida oo Balotelli camal, Balotelli waxa waaye maqaayada isla tagi jirnay, waa isla soo cunteyn jirnay. sidoo kale Adebayor marmar gurigeyga imaan jiray, PlayStation isla dheeli jirnay. marmar xaafadiisa tagi jiray, FIFA isla dheeli jirnay, Champions League isla fiirsan jirnay. Patrick Vieira na saaxiib fiican aan ahnay. I don't know ina aragtay Norway isla imaana mar Tromso ciyaar isla aadnay, isla soo fiirsanay. way caawin jiray. Adebayorna sidoo kale maxaa dhahay competition ku jirna, laakiin iyagu way iga weynaayeen. marka qofkii maxaa la dhahaa oo saaxiib relation la leedahay uu ku caawinaa. marmar benjiga markaa fadhiisid oo adiga ogta ciyaartooyga inta ka fiican tahay ma dhihi kartid discipline ina u laqaatid waa academiga waxaas dhan lagu baraa. discipline kaaga waxaaga benjiga ina fadhiisan kartid waxaas dhan lagu baraa ma psychology-gaaga sidoo yahay waxyaalahaas dhan. okay waa xanaaqi kartaa adiga, laakiin xanaaqaaga ina dadka tusisid maaha. haddii benjiga lagu fadhiisiyay bes beri imaaw 90 minutes training number 1 ka noqo.
saas le samayn kartaa wax kale ma samayn kartid coachkii ku xiran tahay adiga coach ma tihid mogta coachka ciyaartooyga dooraya haddaa fiican tahay asigaa ku gelina haddii kale waxaa laga yaabaa maybe maanta asiga inuu rabo qof oo speed badan waxaa laga yaabaa beri inaa xirisid qof adiga oo isku speed tihiin marka waxyaalahaas dhan uu fiirinaa coachka maaho The coach told me like how to play on my position, and I find it really easy. And that was about it. Yeah. And do you find also having some really experienced players around you, like in the second half you had Silvinho out there as well, who must be nearly twice your age. Yeah, is that a big help to you? Yeah, Silvinho has played, for Barcelona and stuff, and he always helped me in training. Him and Bellamy, they always tell me how to play. I need to play like quicker and stuff, and that really helps me. lacag fiican lagu siinaa adiga oo noloshaada ku maamushid maxalla waxay ku xiran tahay agentigaaga waxa oo soo dhameeyo ma ahan qaar waxay haystaan hadda Yaya Toure camal lacag badan 200 oo qaadanay ma fahmino ani cunug yar markaa tahay oo soo baxayo lacag badan ma lagu siinaa marka ma fahmino lacag oo adiga oo haddii sida lacagta Yaya Toure leysii aniga haddii biri waxa laga yaabaa in oo lacagtaas si qalad u isticmaalo ma fahmino waxa lagu siinaa marka yarta adiga lacag oo adiga ama mushan kartid bas markaas haddii aad si fiican u samayso dan saas step by step way no hadana waxay ku xirantahay agentigaaga hadduu contract fiican ku soo qaado waa kaas waa dhamaan Περισσότερες από τον Εργοτέλη απέναντι στην Εστία. Στις 9 η 6 είναι προς την Εστία. Το σούτ από τον Ιμπραήμ είναι γκολ. Ο Εργοτέλης μειώνει με ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Ιμπραήμ, ο οποίος έτσι ξαφνικά πήρε την μπάλα, έκανε ένα δεξί σούτ στην δεξιά γωνία του Μέγερη, μειώνει το σκορ, πετυχαίνει τον γκολ της τιμής για τον Εργοτέλη. Soomaalida horumar way gaari karaan laakiinse waxaa loo baahan yahay qof oo maxaa la garab istaago qof oo aniga nasiib wanaag waxa ku lahay aabahayga waxa waaye wiligiisa uu caawin jiray marmar -12 idoo waxa waaye aabooyinka kale kulli way wada baxaan qabow gaariga galaan gaari ma gali karin ciyaarteeda training in la oo ka dhameysto training ka bacdi wuxuu dhahaa qalad saana sameysay saan sax ahayd saan qalad ahayd ma fahmino mar aabahaygu ahaay mar saaxiibkeygay marna maxaa la motivatorkeygay marna guidancekeygay mar jidka asiga ay tusin jiray ma fahmino marka qof saas ama loo baahan yahay ma fahmino dadka badan waxay haystaan role model waxay dhahan ninka Maradona waa role modelkeyga ani aabahaygu ahaay maxaa dheh mar walbo wuxuu jeclahay in aan meel gaaro hadana wuxuu jecel yahay in oo Soomaaliya maapka mar walbo wuxuu dhahaa Soomaaliya in dadka adduunka inay ka muuqato jecel yahay ma fahmino Soomaaliya number 1 Soomaaliya ma cayn kartid adiga ma fahmino marka Soomaalida waxay u baahan yihiin qof oo caawiyo aniga hadda camal professional waxa soo ahay 22 sano maaha aniga waajibkeyga waxa waaye in aan Soomaaliya waxa ka saaydan in aan ilmahan oo hadda soo koraayo hadda waxa waaye waxa la gadanayo ciyaartooy 6 sano 7 sano 8 sano Soomaalidana waxay u baahan yihiin waqti 6 sano 7 sano 8 sano in oo maxalla la socdo ma fahmino 12 sano markuu cunuga hadda Soomaaliga 12 sano markuu gaaro saaxiibo kale oo yeeshana ma fahmino markaas waxa la rabaa 12 sano 13 14 marka ugu daran yihiin waa ilmaha markaas waxa loo baahan yahay in oo dhinaca banooniga loo soo jiido mise dhinaca sportiga hadii kala saaxiibo oo gooni oo yeeshana markaas oo u dhamaatay wiilkaas ma fahmino marka insha Allah waxa sameyn doonaa academy mise έχει καλύψει τώρα ο Κουρμπέλης στο κέντρο της άμυνας. Καρδόσο. Ιμπραήμ. Κοντά το Χουάνμα. Πέρασε πολύ ωραία ο Ιμπραήμ και πάτησε περιοχή. Γυρίζει το πλασέ 0-1. Ο Μονακέλος σκοράρει στο 30.
talada ilmaha siin lahay waxa waaye kow waxa waaye waalidka inay dhageystaan kow labo iskuulka muhiim waaye school number 1 iyo number 2 waxa waaye haddaa rabtid inaa banooniga meel ka gaartid waxa waaye you must work very very hard ma ahan hal maalin training bes hal maalin training sameynaa biri professional noqonaa ma ahan maalin walba inaad training sameysid waa aniga hadda iska soo qaado aniga waxaa bilaabay 10 sano markaa jiray waxaa bilaabay iskuul ka hor in oo training sameeyo nus saac orada tegi jiray qof kicin jiray ma lahan aniga iska kicin jiray saacadeeda ku aadisana iskuul ka hor waa imaana waa qabeysana banoonigii boorsada gashana iskuul aadi jiray marka iyo waxaa kaloo loo baahan in oo banooniga qaado garoonka iska aad banooniga ku soo ciyaar this is very important iyo waalidiintana waxaa sii lahaay ilmahaaga waxa waaye inaa u noqotid role model motivator ha ka maqnaanin time very important waaye in aa fadhi ku dirir aadi lahayd iyo waxaa fiican in ilmahaaga saaxiib la noqotid oo la hadashid taasa fiicnaa leh soomaalida badanaa waxa waaye aabahooda mala joogaan laakiinse waxaa kula talin lahaa in oo maxaa la dhahaa aabooyinka inay ilmahooda noloshooda ka maqnaanin aa kula talin lahaa si oo hadooti ilmaha ma u baahna in oo ciyaartooy noqdo sports hadduu noqdo xataa universityga number 1 hadduu ka galo waxyaalahaas dhan ma fahmino marka hooyo keligeeday ma caawin karto marka aabaha waxa waaye qasab waay in oo nolosha ilmaha ku jiro. And did you have a chance in that 2 hours to ring your family just to tell everybody that you were definitely playing? Because Dedrick the other week said he hardly had time to tell people that he was playing before the game actually started. No, actually I called my family, my father, and I told him I was in the squad, and he was really happy for it. Somalia maxaa la dhahaa of course Somalia wadankeyga dhan waaye one day waa jeclaan lahaa inaa u dheelo Somalia laakiinse hadda maxaa la dhahaa waxaa loo baahan yahay in oo I don't know maxaa lagu dhahaa af Soomaaliga waxay u baahan yihiin in oo horumar fiican ay u baahan yihiin iyo structure in si fiican loo sameeyo